qaybtii afraad ee shirarka lagaga xaajoonayo sidii looga hortagi lahaa ficilada kooxaha argagixisada iyo budhcadbadeeda ka jirta Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. waxaa shirka ka qayb galay madax sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socda beesha caalamka, waxaana si qoto dheer loogaga hadlay sidii loo sameyn lahaa dadaallo midaysan oo la iskaga kaashanayo sidii wax looga qaban lahaa ficilada kooxaha xagjirka loogu yeedho iyo budhcadbadeeda ka qowleysata biyaha badda Soomaaliya. madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee shirka ka qayb galay ayaa sheegay in xukuumadda xilligan talisa ay sameysay dadaallo muhiim ah oo lagu daciifinayo awoodda kooxda Al-Shabaab, waxaana ay sheegeen in dowladdu ay kor u qaaday xaaladda ammaanka oo ay ka soo qaaday ilaa gunta hoose isla markaana la gaarsiiyay meel shacabku ay kaga raysteen weeraradii tirada badnaa ee Al-Shabaab ay ku soo qaadi jirtay. shirkan ayaa waxa uu dabab socdaa shirar dhowr ah oo ka horeeyay oo ka mid yahay shirkii lagu qabtay London ee ay maalgelisay dowladda Ingiriiska ee lagaga hadlayay arrimaha budhcadbadeeda Soomaaliya.